dal walba wuxuu leeyahay ilo dakhli ka soo galo taas oo ku maareeyo miisaaniyadiisa sanadlaha ilaas wadamada dakhliga ka soo galo waxaa ka mid ah dalxiiska. muuqaalkan waxaan ku soo koobaynaa saddexda wadan ee dunida lacagta ugu badan ka sameeya dalxiiska. ku soo dhawaada gal ganacsi. Mareykanka ayaa noqday wadanka dakhliga ugu badan dunida ka sameeya dalxiiska waxaana sanadkii ka soo gasha lacag lagu qiyaasay in ka badan 210 bilyan oo dollar. Spain ayaa wadanka labaad ee dunida lacagta ugu badan ka sameeya dalxiiska noqday wuxuuna ka sameeyaa sanadkii ku dhawaad 68 bilyan oo dollarka Mareykanka. France ayaa dalka saddexaad ee dunida lacagta ugu badan ka sameeya dalxiiska. lacagta uu dalka France ka sameeyo dalxiiska ayaa gaaraysa 60 bilyan oo dollar sanadkii. warbixintii gaarka ahayd ee aan ku eegaynay wadamada ku hormaray dalxiiska ee aad kala socoteen gal ganacsi waana inta. haddaba daawade wadankee jeclaan lahayd inaad u dalxiis tagto?